waxaan rabaa maadaama xafladani ay ahayd daahfurka ururka Somali Community Care Organization waxaan rabaa anagoo ka faa'iideysanayna fursadan gudoomiyihii hore ee ururka horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha cusub ururka horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed anagoo ka faa'iideysanayna waqtiga ayagana aan ka codsanay inay la ilaaliyaan protocolka iyo waqtiga in aan sameeyno xil wareejin yar si uu gudoomiyihii hore oo xilkii uu wareejiyo gudoomiyaha cusubna xilka uu helo adinkana aad tihiin xildhibaano wasiiro maxaan ku raadaaye iyo wufuul oo aad marxaati ka naqanaysaan inay xilka kala wareejin doonaan biidnillaahi alkariim ayagoo isla socda ayaan rajaynayaa dhawaan inay masrax inoogu soo biiri doonaan ma sacbinaysaan mise oo istaagaysaan أحد يهدي يوم زندين سود بي إن شاء الله سود بي وياي وحن ورشيد سيد عادة مركي حلال لك لو ريجينايو وحا عام سومالو حيتر هذا ور مقالو وراغدو قرية دبادا حل لك لو ريجينايو on record waxa u baahan yahay wax on record ah oo documentary ah la kala saxiixanayo waraaqada saahada u jeedo waxa ku xusan gudoomiyihii xilka wareejinayay oo ah Abuukar Shuute Hussein ahna gudoomiyaha waqtigan xaadirka ee hay'adda Somali Community Care Organization iyo walaalkeen saaxiibkeen gudoomiyaheena cusub oo aan rajaynayo inuu shaqada sida ugu qurux badan saaxiibka waxaa la ama ku daya ama gudin waxaan rajaynayaa haddii uu soo matalayay xitaa inuu la dhaanjiyo ama ka badan inuu la imaado gudoomiyaha cusub ee ururka horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed Bulsiyo Cabdiweli Haashim Maxamed waxaan rajaynayaa adinkana inaad markhaati aad ka noqotaan kala wareejinta xilka soo dhawaada insha Allah كامل أنا سؤال واحد بس ما شاء الله بسم الله بسم الله waxaa markaad ku noqonaysiin inaan xilkii doosiyo aan ku wareejinayo gudoomiyaha cusub gudoomiye Cabdiweli Haashim Maxamed isagana mas'uuliyadii doosiyo maanta wixii ka dambeeyo gacantiisii ay ku wareegatay idinkiina markaad ka noqda isagaa laga doonayaa hawshii ummadda Soomaaliyeed loo hayay oo doosi u haysay inuu sii wado insha Allah